Asalaamu calaykum kusoo dhawaada qaybtaan kaga hadlayna grammarka basic ah. Grammarka waxaan dhahay asigoo faahfaahsan marka unit dhamaadaan ka hadlayaa hadda keliya guud ahaan u dulmaraynaa. Hore waxaan usoo barnay personal pronouns. Personal pronounkan wixii aan kusoo barnay waa muhiim, waa inaad taqaanid. Verb to be ficil ahaanshahaane sidoo kale waa inaad taqaanid. Okay, positive adjective aan soo barnay ayadna ugu dambeysane ayagan inay xafidsan tahay waa muhiim. Marka intaas soo baranay marka unitka maanta ku xigo yani aan baranayno oo hadda cashirka noogu jiro waxay tahay this is taas marka waxay noqonaysaa waxaa loo yaqaana waa demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns aa loo yaqaanaa. Demonstrative pronoun muxuu yahay? Demonstrative pronoun wuxuu yahay waa this, that, these iyo those waa afartas xabo waa. Afartan af Soomaaligood in ayagana taqaano oo aad xafidsan tahay oo isticmaali karto waa muhiim. This waxay qaadataa markii la isticmaalayo this verb to be ga aan soo baratay is this is kani waa yani Tom this is Leno this is Carlos this is Tom marka this is ay qaadataa. Okay, that sidoo kale is ay qaadataa waayo wuxuu isku xirin u jeedaa verb to be ga la isticmaalayo. This waa kani, that-na waa kaasi. marka hadda waxaa soo baratay this kani aa soo baratay. haddii gabar ahaan lahaydna waxaan dhihi lahayn xaliimoy this is Marian, tani Marian waaye. Marianay this is Xaliimo, tani Xaliimo waaye. marka this kani ama tani hadba lab iyo dhidig waxay tahay adaa u isticmaalayo. Okay, this waa kani ama tani, that kaasi. Okay, waxaa ku xiga marka these are qaadataa marka these waa kuwaan. Okay, those ne waa iska fahmi kartiin waa kuwaas. marka this kani, that kaasi yani marka wax tilmaamayso waa demonstrative. maxaa sii sabato waa tilmaamid waa demonstrative pronouns magacuyaalayaal muujiye ama tilmaamid labada waa dhihi kartaa. Demonstrative pronouns waa magacuyaalayaal muujiye ama magacuyaalayaal tilmaame. This kani, that kaasi, these kuwaan, those kuwaas. marka kani waa markaa dhehaysid this is kani waa, kaasi waa markaa dhehaysid that is, kuwani waa markaa dhehaysidni these are, kuwaasi waa markaa dhehaysidni those are. Okay, this marka waa wax kuu dhow markaa tilmaamayso this kani. wax kaa fog markaa tilmaamayso that kaasi. wax kuu dhow oo badan laakiin oo hal xab wixii ka badanaya yani kuwaan singular waa hal xabo kuu dhow, hal xabo kaa fog. hal xabo kuu dhow maxaa waaye this yani wax hal shay oo kuu dhow. wax hal shay oo kaa fog maxaa dhahaysaa that kaasi. wax badan oo kuu dhow yani wixii hal way ka bateen wayna kuu dhow yihiin these kuwaan. Okay, wixii hal xab way ka bateen wayna kaa fog yihiin those kuwaas. marka saas oo kale isticmaalaynaa labada singularka oo this iyo that ne markii la isticmaalayo verb to be isla la isticmaalaa. markii these iyo those la isticmaalayo oo plural leh oo jamac ahne are ayaa la isticmaalaa. marka cashirkan intaas ku gaabinaynaa. grammarka hadda keliya hordhiciisa waaye. unitka markuu dhamaado sayriin sheeg waa si full oo tusaalooyin badan wataan ayaa u sharxaa insha Allah. exercise ne waa soo daba dhigaya.